بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسر دوادا عشر كي لباتن إيا سديدات برنامج كي جورك إيا أحكام تيسا وحان كسو جرني حقوق الزوجين أما لبدا إسقباهي حقا إسكوليهين قارهان زوجدا أما حاسك حقيسا أيان كسو هدليني وحان صوفا فاهنور دميني مهركي waxaan sidoo kale kasoo sheekaynaynay oo soo bilownay biilkii ama nafaqadii gabadha la siinayay waxaan kasoo hadalnay ajarka uu ka helayo haddii uu ninku dhiibo biilka niyad fiicanna uu la yimaado maanta waxaan ka hadlaynaa sidaan horeba usoo sheegnay biilka waxaa lagu leeyahay ninka haddaba maxaa ninka biilka loogu waajibiyey sababta loogu waajibiyey maxay tahay su-aashaas jawaabteedu waxa weeye saddex maado ayaa mid dhici kartay in ninka waa caqliyan yaa sharciyan ninka lagu leeyahay haddii su-aashaas la isweydiiyo waxa weeye in biilka ninka lagu waajibiyo ama xaaska lagu waajibiyo ama la yiraahdo qof kastaahi qaybtiisa hala baxo intaasaa caqliyan imaan kartay haddii la yiraahdo xaaska ha lagu waajibiyo ama maaragtay ha wada qaybsadeen haddii la dhihi lahaa maxaa dhici laheyd meherkana sidoo kale in la yiraahdo xaaska bixi oo ninka mehersi biilkana ama maaragtay la yiraahdo meherka wada bixiya labadiinuba taasaa imaan kari kartay sidoo kale waxaa imaan kari lahayd meeshan in la yiraahdo sida ninkuba gabadhii uu u doono oo uu u raadsanayo gabaruu guursado oo uu reer inta u taga uu leeyahay gabadhiina isiiya ee uu maaragtay qarash iyo gabaati iyo maaragtay uu u bixinayo iyo qarashkii guurka in gabadhana intoo kala samee la yiraahdo ayaa dhici lahayd waxaasoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala gabadha wuu ka ilaaliyey si sharafteedu ay u muuqato si ay u noqoto cidda la raadinayo loo baahan yahay ayaa waxaa la yidhi gabadhii marka koobaad horta intaan la isguursan ayada ayaa loo baahan yahoo la raadinaya ayada wey waxa la doonayaa ayadu tii wax dalbaysay ma ahan markaasaa waxaa la leeyahay ninkii raadsa gabar oo reeraha u tago gabar weydiiso kow haddana qarash ku bixi iyo ixtiraam iyo xurmo weliba xaflad weyn iyo intaasoo qofuu dhigaya markaasuu leeyahay gabadhiinan inka dalbanaya meel ummadoo dhan joogto waa sharfid iyo maamuusid gabadha ilaahay uu maamuusay halkii laga dhihi lahaa ayada raadsan nimanka oo keensanin taas marka gabadhia lagu sharf sidoo kale gabadhii waxaa la yidhi ayada a qarash lagu bixinaya meher la siinaya biil la siinaya ee lama dhihin ayada qarash bixi oo maaragtay ninkii lacag sii ama la qaybso ninkii meher sii ama meherka la qaybso lama dhihin sharfid la sharfayo wey xataa waxaan soo marnay haddii ninku gabadha uu mehersado ayagoon istaaban oo aan isreeraysan haddii uu kala tag yimaado calafkii dhammaado ayadoo wax ninka uu faa'iiday aysan jirin xataa meherkii laleeyahay gabadha kala barsii u fiirso meeshaas ayadu waa faa'iide waxaa la ilaalinayaa qalbigeeda maadaama reerkii ay qalbiga gashatay iyo guurkii iyo farxaddii uu burburay a qalbiga loo kabaya u fiirso marka sida ilaahay subxaana watacaala uu gabadha u karaameeyey dad ayaa maanta waxay moodayaan in hoos lala galay waa ka hadli doonaa xalqado fara badan ayaan gabadha sida ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulka iyo diinta u sharaftay ku faahfaahi doona marka ayadiya laga ilaaliyey marna in uu nimanku ka faa'iidaystaan ay khayaana maxaa yeele nimanku qaar ka mida waa been badan yihiin gabdhaha beenay kusoo xarogeliyaan qayb ka mida markay doonayaan waxay leeyihiin dhaqaalaa ii furan meelheblaa iga dhacda qayb ka mida gaariyaal qaaliyaha inta soo qaatanaysa ayagu lahayn ama labis qaaliya gabadhii waxay u muujinayaan masaakiinta aheyd inay yihiin dad khatara sidaasay kusoo xarogelinayaan marka waxaasoo dhan in ayada ay inta raggi raadiso ay af libaax ku dhacdo ilaahay waa ka ilaaliyey waxaa layidhi adigaa lagu baahan yaho sharaf laho lagu maamuusaya lagu soo doonayaa haddana qarashka lagu siinayaa adigu qarashkii ma dhiibaysid dhanka kale haddii oo qarashka ay wax ka bixiso meherkii iyo biilkii iyo waxa dhan hadii layidhaha adigu wax ka bixi ama bixi in dalqadahana ay gacanteeda galaan ama ay wax ku yeelataa imaalaheed waxaana la ogyahay waxa dalqadaha gacanta ninka loo geliyey su-aashaas wax badan ay soo noqnoqotay gabdhuhu inay fahmaan weye dalqadaha gacanta ninka waxa loo geliya ma ahan sharaf lagu sharfayo ee waxa weye badbaadada reerkaa ku jirta sida la ogyahay gabadhu markii ay xanaaqdaba ninka ay furay leeda faraqay ku dhagaysaa
haddii marka dalqadahu ay gacanteeda ku jiri lahayn bil ka yaray kaga soo jeesa laheyd, mar allaala markay isqabtaanba waa ku dul ridi laheyd. marka si labadooduba u badbaadaan reerku u jiro, maadaama ninku adkaysimo badan yahay ayaa loo dhiiba. hadda nin doqona kama hadlayna, hal xuno oo maaragtay aan karti lahayn kama hadlayna, laakiin ninka iyo gabadha waxaa adkaysimo badan markii la isqabta ninkii. sidaa darteed dalqadihii asagaa loo dhiibay si reerku u badbaado, ee macnaheedu ma ahan inuu faa'iido iyo dheef ku gaarayo. marka waxaa la yidhi adugu qarashkii bixi, haddana dalqadihii gacanta ku qabo reerku si uu u badbaado. haddii kale gabadhu markay xanaaqdaba waa ay ku tiri lahayd. hadday 1000 dalqadood xataa ahaa lahaayeen waxaa laga yaaba hal bil inay uga soo jeesa lahayd markay isku xanaaqaanba. taasa marka mas-uuliyaddii ninka la siiyey oo layidhi reerkan aduu qarashkiisa bixi, maaragta mas-uuliyaddiisa iyo kormeerkiisana adiga iska leh. taasa marka si gabadhii looga badbaadiyo in la yidhaha qarashkeen oo biilkii raadi oo adugu dhibto. hadda maanta duruufaha jira annagu kama hadlayno, waxa weye waxaan ka hadlaynaa ilaahay subxaanahu watacaala sidii uu noogu dejiyey dastuurkaas quruxda badan ee diinteennu ay noo cadaysay aan ka hadlaynaa. wixii kaloo duruufo dhacay waa wax oo yacni aan kitaabka aan ahayn, yacni gabadha soo xamaalaysa ama maaragtay keligeed ilmihii lagu dayacay, waxaasoo dhan waa howlo kale. waxaan ka hadlaynaa xuquuqda gabadha ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waa inay ogaato si aysan u rumaysan dadka beenta sheegaya ee maalin kasta gabdhaha xuquuqdooda aan u doodaynaa leh ayagoon wax biila u ogolayn, ayagoon meher u ogolayn, ayagoo la kala goosanayo biilkii qofba qeybtiisa dhiibayo la kala goosanayo. marka sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala reerkiisi uu u liibaano oo sacaado iyo farxad guriga ugu noolaado waxaa la yidhi ninkii biilka keen, si maaragtay gurigii uu u barwaaqoobo loo wada deganaado waxaa la yidhi ninkii dalqadaha adigu gacanta ku hay si aan burbur deg dega u imaan. haddaba u fiirso khasaa'ista xaasku ay leedahay. dad badana biilkooda waajiba, dad badan ayaa biilkooda waajiba. hooyii aabba haddaysa waxaysan biilkooda waajibaya, caruurtii haddaysa hanti lahayn biilkooda waajibaya. ayada waxay uga duwanta waxaasoo dhan, waxay uga duwanta gabadhii hadday rabtaba qani ha ahaato, milyaneer ama bilyaneer ha ahaato, ninkuna faqiir ha ahaado, subaxdii inta la kal lahaa xamaaligiisa soo xamaash ha ahaadee, asaga biilka laga raba halayiri. ayadoo hodan oo aqniye ah, taajirad ayadoo ah alayiri asaga biilka laga rabaa. laakiin dadka kale o dhan biilkoodu markuu waajibayo oo markays waxba haysan. u fiirso sida ilaahay u sharfay gabadha. qodobka labaad, qof kasta xoolihiisa biilku ka waajibaa ilaa zawjada ma ahan. ayada xoolaha ninkeeda biilka laga qaadaya ayadoo hantile. midda kale ninka haddii uu biilkii awoodi waayo ee gabadhu aysan u cafin, wixii soo dhaafay daynay ku noqonayaan, waa lagu leeyahy ninka. laakiin dadka kale oo dhan hooyo iyo caruurta iyo waxaasoo dhan biilkoodii wixii hore aada dhiibin dayn kuguma noqonaya, waa dhacaya. ayada dayn aan harayn wey. ragga qayb ka mida meeshaas inay ku baraarugan wey. rag badanoo waxaa jira gabdhaha markay kala tagaan xataa meherkoodii inkira oo yidhaahda iguma lihid. u fiirso, dayn aad qof ka qaadatay waxaad og tahay in lagugu leeyaho qiyaamo laguu soo taagaya hadduusa kuu cafin. haddaan gabadhu marka aysa kuu cafin biilkeedii ama aysa kuu cafin meherkeedii, maalinka qiyaamo ayay kaa goosanaysaa. camaashaadii wanaagsaneedana la siinayaa haddaadan ka cafis dalbin ama aadan siin. waxaa kaloo intaa dheer, sida raajix ah xooga badan, dadka kale nafaqadoodu waa intii ku filan, laakiin gabadha nafaqadeedu waa qoondaysanta, waa la qoondeeyey. diintu waa ay qoondays, sida culammada madhabka shaaficiyadoo kale u qabo waa go-anta, waa faahfaahin doonaa. haddaba marka gabadha uu biilku u waajibayo shuruuday leedahay. ninkii laftigiisa lama dulminayo, ilaahay subxaanahu watacaala cidna ma dulminayo. qofna xaquu siiyey, qof kalena xaquu siiyey. mid xaqa la saaray asagana waxa weye xaqaas la saaray, xuquuqna waa la siiyey. qof kasta wuxuu leeyahay xuquuq iyo waajibaad, yacni xuquuq dul saaran oo lagu leeyahay, yacni xuquuq uu leeyahoo mudan yahay, iyo waajibaad laga rabo. maadaama ninkii layidhi marka xaaskaaga xaqay kugu leedahay, oo inaad meher siidida waajiba, inaad biishid ayaa waajiba, inaad guri geysatid ayaa waajiba, inaad biilkeeda iyo baatigeeda iyo masruufkeeda iyo marashadeeda sidaa rabta dheh aad bixdida waajiba. adigana waxaa ilaahay ku siiyey mas-uuliyad oo ah kow,
xaaskaaga waa inay isu kaa ogolaataa layidhi. marka gabadhi marka biilkeeda waajibayo waa inay tamkiin samayda oo ninkeeda isu ogolaata oo uu heli karo markuu rabo. waa in oo ninkeeda ay isu dhiibtaa, isu ogolaataa oo aysan isku diidin haddii uusan wax xaaraana doonin. u fiirso qodobkaas waa muhim. wax xaaraan ah hadduusan doonin. xaaraanta maxaa ka mid ah? xaaraanta waxaa ka mid a gabadhiio caadada qabta, dhiiggii caadada hadduu yira waa kuu galmoonaya, inay isu diidda waa waajib weeye. isu diiditaankaasna kumana dambaabayso, biilkeeduna kuma dhacayo. biilkeedu waa leedahay. haddii uu sidoo kale yiraa gabadhii xagga dambaan kaaga tagaya, ayadana isu diididiina waa waajib, biilkeediina kuma dhacayo. marka inta kale gabadha haddii ay isu diidda ninkeedii, biilkii ma yeelanayso, waa dhacaya biilkeedii. marka waa inay isu ogolaataa. kow, qodobka labaad ama shardiga labaad waxa weeye gabadhu waa inay ninka u raacda meel allaala meesha uu u guuro ama uu u kaxaysanayo, meeshii uu la degayo, gurigii iyo magaaladii iyo wadankii uu asagu doono inuu kula noolaado, haddii aan wax khatar nafteeda ku ah iyo ammaankeeda aysa jirin, guri u suuban oo la degi karana uu yahay, inay u raacda waajiba. hadday marka tiraahda ka waran gabadhii, anigu gurigaanaan deganaanayaa, haddaad dan kuu tahay ila soo deg, kuma raacayo, gurigaygaan deganaanaya. kow, ama maaragtay ma guurayo, meesha aa rabtid kuulama guurayo, wadankaanan deganaanaya, biilkeedu waa dhacaya markaas. maxaa yeele ninkan maxaa loo saara horta biilka? haddaad aada raacayno uusan kula guuri karin, guriguu rabo uusan ku degsa karin, oo guri oo kuu cunma, maxaa mas-uuliyadda loo saaray? labadiinna ilmo waa wada rabtiin, labadiinna waa isla raaxaysateen, labadiinna waa isku dhowrsanaateen. haddaa marka adiguna halkaas fariisatid, maxaa loo saaray marka mas-uuliyaddii? marka gabadhii hadday tiraahdo anigu gurigaas kuulama guurayo, meeshaydaanan deganaanaya, kow, ama ay tiraa wadan hebel kuulama guurayo, ama magaalo heble kulama aadayo, kuma raacayo, aniga meeshaydaanan jooga, biil iyo baati ishii ama masruuf iyo marasho isii, biilkeedii waa dhacaya, waxba ma yeelanayso. maxaa yeele nushuusa lagu daraa taas. waxaa diintu ku daraysa ama ku xisaabaysa taas mukhaalafanimo lagu daraya taas. maanta waxaan aragnaa oo si cad oo aragnaa gabdho badan oo qurbaha yimid oo nimankoodii ka soo tegay. qurbaha yimaadeen ayagu sharci qaatay, ninkii sharci ma qaadan, ma soo imaan karo. ayaan markay joogto, markii la isku xanaaqa waxay leedahay, shiikow ninkayga afrikuu jiraa, intaasuu sanu iga maqan yah, biil iyo baati ima siiyo, waxba iima taro, haye maxaa xala? taas wax xala laguma hayo. xalku waxa weeye ninkaaga inaad u tagtid, inaad tiraahdid waa ekana edhaqo, adigaa kasoo tegay marka hore soomahan, edhaqo biilkayga iyo baatigayga isii, guri idegso. hadduu ku degsa waayo markaas kabacdi cabasho gudbi, shareecada islaamku waday kuu furaysaa. hadduu ku biilo waayo, guri ku degsa waayo, noloshaadii ku siisa waayo, wixii aad u baahneed uu ku sii waayo, markaas cabasho ka gudbi. laakiin adigu inta ka soo tagtay oo meeluusa imaa kirin tagtay oo ka soo fogaatay, haddaad tiraahdid ima biila imana baatiyo, ilaahay subxana watacala qofna ma dulmin. ilaahay adiga siduusa kuu dulminayn, uusan ninkana u dulminayn. ilaahay male islaantaadii oo kaa tahriibto, meel heblo tagto, meelaada adigu u tegi karin tagtay, waa inaad badar iyo biil iyo baati ku siidaa. haddii aad bixi weydana ay kaa tagtaa, lama leh. diinta islaamku taas ma ah. gabar yahay ninkaaga maadaama aad ka soo tagtay, haddaad rabtid xuquuqdaada inaad ka heshid oo ayba tahay ima biilo u tag. maalinkaa u tagtid waxaa tira war aniga xaaskaagii soo ma ah, waa ekan ibiilo, dhuuni iyo dhar adaan kugu leeyahay, guri idegso. haddii uu ku biilo waayo oo xaqaaga kasoo bixi waayo, markaas u tag culummada. laakiin adoo ka tegay adigu ha caban, hashu ayada geela cunaysa, cabaadaysa noqonaysa. waxaa kaloo maanta aragnaa gabdho fara badan oo reerkoodii oo barwaaqo ah, ninkii isfahansan yihiin, ilaahay owlaad siiyey, barwaaqo siiyey, inta qolo shayaadiinaha u timid
ay ka dhaadhiciyeen waxaan jirin oo layidhi ninka haddaa banaanka iska dhigtid barwaaqa helaysa iska cayri khayr iyo albaabada kuu buuxsamaye reerkoodii burburiyey. sidaas ku kala tuuray reerkoodii. markay ku kala tuureen muddo ninkii isfahmi waayeen banaankii ninkii ay dhigtay, yani maba furin, kuwa fura kama hadlayno, banaankay geysa iga bax gurigay tiri. halkaasuu joogaa, guriga uma ay ogola. muddo ka bacdi wadaaday u tagaysaa, sheikhow ninkaygii 3 sano ama 2 sano ama intaas sanad uu meel heble wadanka ila joogaa, ima biilo, badar iyo biyo midna ima siiyo, halkaanuu joogaa, maxaa igala gudboon? ayadaana daalimadaho guriga ka cayrisay. taas ayana waxa weeye horta ninka gurigan usoo celi, ilmihiisa usoo celi, ka bacdi xuquuq weydiiso. laakiin shareecada islaamka qofna ma dulminayso. sida aysan shareecada islaamku adiga kuu dulminayn ayaysa asagana u dulminayn. marka walaalayaal, taas waxa weye waa baraarujin ku saabsan gabdhaha ayagu inta nimankoodii cayriya ama ka soo haajiray haddana doonaya inay burburiyaan gurigii. weliba shiikhii su-aasha sii weydiinaya, ragga qayb ka mid a wadaadda waxa laga yaaba fiqigii waxba aan akhrisan, markay tirahdo intaasoo sana ima biilhaye kaalay waraaqu kuu qoraya waa lagaa fasaq. kuwaas daalimiin weeye, ama waa qof dad jaahiliin ah. ma weydiinayaan sida wax u dhaceen, xaggee la joogaa, maxaa kala maqnaashihiina keenay, maxaa idin kala fogeeyey, sidee wax u jiraan. shareecadu qof hadduu kuusoo dacwoodo weydii kan kale duruuftiisii. laakiin haddaad tirahda haye kista yartaa iigu shub halkan aan waraaq fasaqa kaaga qore, waxaas waa waxa reeraha burburiya. dadka diinta yaqaanaahi waxayoo dhan ay warsadaan, ninkiiay la xiriiraan, warsee wax u jiraan. laakiin maanta waxaan aragnaa meelo badan oo wadaadadii laga cabanayo, weliba qurbaha kuwa inta meelo furtay le islaantii ninkii 2 jeer is afdhaafaba haddaad $100 ii keentid fasaqan kaaga qoraya, oo gabadhii oo la qaba haddana u xalaalaynaya inay nin kala guursan karto. ninkii oo miskiin oo reerkiisoo rabo halkan taagan islaantii waa kaa furay. war waxaasi waa dulmi, diinna ma ahan. waa jahli iyo aqoon la-aan diinta idinka haysa. waa jahli idinka haya qiyaamada xisaabteeda. adigoon diintan baranaad rabtaa inaad wax ku xukuntid. ilaahay ha laga cabsado, reeraha yaan la burburin. waxaa sidoo kale dulmi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ka raalli ahayn, ninka reerkiisi inta ka tegey oo gabadhii oo dhaqan rabta ka tegey oo gurigii iskaga baxay, aan doonayn inuu reerkii dhaqdo, oo aan doonayn inuu dhigo, mucallaqada ka dhigay, kal mucallaqa, mid meel laga soo lulay gabadhii ka dhigay. waxaan naqaanaa gabdho dhaqan raba oo reerkoodii raba, ee nimankii hooyooyinkoodu inta soo farageliyeen ay yidhaahdeen reerka aniga maamulaya. xaggee lagu arkay hooyo maamulaysa reer yacni ay haysato gabar weyn oo caruur dhashay oo maamo ah, hooyo rabta inay sodo rabta inay maamusho oo la dhaqaalahan kuu haynaya ayadoo wiilkii magaciisa ku imaanaysa ama tii magaca gabadha ku imaanaysa? waa dulmi. marka ragga noocaasihi ee furaha ay hooyadii weli u hayso ee reerkiisii ay ku burburinayso, waa wax la aqbali kara maa. marka waxaan naqaanaa rag halkaas inta reerkii ka istaagay, gabadhii la dhigi mahayo mana dhaqanayo. kuwaas ogaada shareecada islaamku inaysan dulmigaas aqbali karin, qofna inuusan shareecada islaamku wado ka weynin ogaada. ragga isleh gabadhan ha furin, kuwaa waxay leeyihin haddaan furo way guursanaysaa, oo maxaa kaa gala hadday guursato? haddii aad adigu diidid inaad dhaqatid waa inay guursataa. ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhihi wuxuu leeyahay macruuf, si wanaaga u haysta ama si wanaaga usii daaya. marka ragga ayaguna banaanka inta reerihii ka tegay aan dhaqasho iyo dhigasho dhigid midna ogolayn, ayagana waa daalimiin dulmi wada. diinta islaamkuna gabadhaas qiil uma weynayso. laakiin dadkii xukumkaas loo geeyaahi waa in ay la xiriireen qof kasta oo garta si fiican u dhageystaan, waana inay yihiin dad diinta islaamka iyo fiqigii iyo arrimaha qoyska si fiican u fahansan waa inay yihiin. insha allahu tacaala biilka iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha uu u sharfay, diintu ay ugu qoondaysay, nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ugu kala dhigdhigay, waa faahfaahin doonaa. muxaadaradeena soo socotaan ku faahfaahin doonaa. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu.